inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala garab uu ku siiyo xilkiisa suu u gudan lahaa uuna ka mid noqon lahaa waasada iyo salaadiinta beelweynta Soomaaliyeed xalka u raadinaya maanta Soomaaliya in lagu dejiyo teeda kale haddaan mid sii raaciyo sida maanta yani aanu aaminsanahay anaga as Soomaaliya nabadda Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya badana wax laga abaabulo waa centralkeeda London inay tahay aaminsanahay waxaana jeclaan lahaa suldaanka inuu ka mid noqdo odayaasha xalka iyo siyaasadda u raadinayo wadanka ku nool yani UK teeda kale suldaankana ma aha suldaan metelayo local residents suldaanku wuxuu metelayaa jaaliyadda garaa ku nool Europe and America and Asia and part of Africa waxaan jeclaan lahaa inay dadkan saas ay ula ogaadaan aan maxal jiro uu garamaanta uu leeyahay postcode lagala xiriiro postcode keenana waa ugaas Cali Xasan insha Allah kelmadeeda intaas aan ku soo koobaya insha Allah falyatafadal mashkuuran ugaas iyo xilkiisa insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad u mahadsan yahay aqoonyahan Xuseen runtii waqtiga aad ugu yar yahay akhyaar badan iyo culimo u diin badan baa dhiman inay meeshan ka hadlaan waxa kale oo inoo dhiman suldaankii oo isaga naftigiisa wax badan inooga hadli doono insha Allah waqtiga waxaan rajaynayaa in aad inoo soo koobtaan biidin Ilaahi kariim haddana waxa inoogu xiga oday ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ahna odayaasha kana mid ah odayaasha beesha beelweynta Garre Sokor Cismaan falyatafadal السلام عليكم أنا وحير أفقران كل يا وان سومالي وجاي يقرأ لي هذا أرمد فلافل تانغويا وان قلت له بنيفي وجاس علي حسن كوفيدي وجاس كي كان جوباكين ماركي وجاس كان صور وين الناو وانتلي بين دوبتان جرت وجاس كانوا كوفير كانوا قصتي بيلن وكيجرتي markii goostaan dhigay zaid dubate garri dubate leen dhageenan waa faanukeen kan dubanaa akaasi ugaasi le ka garri elani ugaasi le ka garri ti dum garri dubate leen garri faanu Soomaali dubatani afa Soomaali le gudum benu markii afaanu garri kan dubanaa ugaasi keena ko fer keena ugaasi Europe fi UK fi America kama ko fenur keenu ko fi kana fatati marafi akanu ko fi asa irken كاسة السلام عليكم aad u mahadsan yahay Sokor Cismaan runtii hoosan ugu dhigayo waxaan intaan fududaan wax baan rabay inaan sheego warka waa qaldami lahaaba alxamdulillah oo saxay waa afgarre ma sha Allah afafka Soomaali aad u badan yihiin maxaa tiri maay waa laakiin fikirkeyga kulli waa qaldami karaa laakiin Soomaali markaan joogno maayga iyo maxaatirigu lahjad ma laha laakiin maaygu marka afgooy ka bilowdo aad degto jiida afgarre bagadi waxyaabo badan arkaysa tunni arkaysa afbara waa arkaysa waxyaabo badan arkaysa marka taasna kulli waa idin socodsiinaya waxa inoogu xiga Sheekh Yuusuf Isaaq Cabdi oo isagana kelmad iyo duco intaba inoo soo jeedin doona Sheekh Yuusuf بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهكم مهدينا horte anagoo dad muslina halkan iskeen baadaan codkay hadda maqoruf maraba ilaahay baysi codkay gaad u dheer yahay hatta maqorufka hadii dhulka dhig waa idin deeqi ilaahanku mahdiya taasana haddaan bilaabo bisinki bismillaahir rahmaanir rahiim bisinki ilaahay ku bilaabo anaga horta qoli garre la yaraa والله اللي يو تاريخ ما سو باللابين قري وصومالي وي أرد كصومالي وي قري ماها حال قلو أو ما أنت وقاسك دورة كليجي ماها تاريخ دا سو باللابو كودي قري وحل يرا وميليتري صومالي وي تاريخ قد وادو مستين مشيجين هذا دي سو شيكيو لوق مليرا ددج وراب لو مغا بخيي تاريخود لوق ما لوق سوماليه كو بخستي ددج وراب ليرا
gobolka gedo garbahare aa la yidhaa garbahare macaanoodoy oo biyaha dameerka cabay wey garba dameer wey intaasoo dhan ah busul meel la yidhaa oo garbare markii la dhaafo buurdhub hoosteeda iyo garbare meel u dhexayso busul baa la yidhaa dagaalka busul 500 sano ilaa halkaas luuq ilaa garbahare awal dadkii toobiyaanka hadda joogo qabiilkood hadda ma taabanaye ilaa maqorofaa gacanta ku haye cadowgaas taariikh in abdullaah xasan baa soo raacnay annaga in abdullaah xasan khayr allah siye meel la yidhaaho aad maqasheen ii sheegi cawaasa meel dudunta ku baxayso dhan soomaaliyaas kale buu yidhi lambarka dhagax u suray cawaasa meel la yidhaha hoosteedii toobiya kala barkeedii yaa dhagax u suray soomaaliyaas kale buu yidhi ani garaadaan nahay dagaalkaas degmid annaga ku xigin annaga ku xigne dajawarabaa ka soo rarnay garbaareen soo rarnay intaa soo marnay gobolkii gedo belax waan soo gudbinay waa soo rarnay doolaan soo marinay hadda waxaan isku dagaalamay areer iyo awaasaan ku dagaalamayna soomaalina dadka walaalaha annaga wada dhalanay oo in cabdullaah waxa weeye siyaad barre allahu raxmade waa maqashay shanta soomaaliyaan isku daraa buu yidhi shanta soomaaliya siyaad barre sheegayo waa dhagax in cabdullaah xasan awaasa ku suray wey awaasa iyo garba luuq dhexdood waxaan u malaynaa 1800 kilomitir markii laga soo qabto doolo iyo hawaasa 1800 kilomitir wey annaga garaadana deegaana annaga ku xigne in abdullaah xasan dhagax suraa raadinayna maalin kasta dagaal baan dhex maraya sanad kasta soo hal gobol aan soo goysanayna hal gobol aan soo goysanayna hal gobol aan soo goysanayna marka annaga haddaan joognaa 2092 waxaan soo furanay 3 gobol oo waaweyn aan soo furanay meel la yidhaa oley meel la yidhaa goof meel la yidhaa dhaas intaasaan soo furanay calankii soomaaliya ku xiran hadda 3 gobol wey 2002 anaga intaas dad walaa annagaa wada dhalanay oo shantii soomaaliya oo loo magacaabay nooma gurban weligood intaas waa xusleeyaan waa dagaalamay baa leeyihin cadow baa noo dhaafteen oo soomaaliya daatiin cadowgii niga qaban laheed kor naga soo gurman laheed oo taariikhii aabbaha wuxuu dadaalay aabbaha soo raacay ama bicshar ha noqdo ama geel ha noqdo beerlefal ha noqdo odayaal waxgarad ugaas ha noqdo aabbahay meeshii ku dambeey aawi in la dhaha wanaagsan ani maadaama in abdullaah xasan halkaas shantii soomaali u magacaabay dhagax suray siyaad bareen u magacaabay shantii soomaali isku darayna leeyihiin ani taasaan ku dhimanaynaa taasaan ku daba jirnaa idinkii soomaaliyiintii waa naga harteen horta taariikhi garra waa saas wey taariikhi garra saas wey military soomaali baa laakiin idinka waa noo garan waysa ogaada horta runtii haddaan sheego daraada ka mid a maanta 4 maalin hadda ka joogno dagaal baa dhacay saas u weynay laakiin waa la celiyey حتى شن بريان كجوجنا وريستا دا مويال إلى فيلت وريستا حتى درات وعليهن سومالي بان الرئيسة سومالي اللي عليو سومالي كل الكشان الليهن وعنو مالينا هنت دال شيءو لبعض دا سودات كلا هايو سومالي هان أنا يقول ده ولا لا نجا وقاعدين حق السوحك لبعض الناس كلا هايسا دجال كاس سببت أنا جا كل حاجنا اللي دجال مركب باللعبات اللي مقدش مرة هذه ما دام سومالي صوتي كل حاجة بعد دجال مية واساس horta inaad garataan horta mid kalaatan marka soo noqdo anaga dadka degeli mirifle Soomaaliyiintii waa maqaarkanaga waa shaarkanaga jaakeetkanaga way degeli mirifle ii garana waa wanaha anaga dhuuxdii dhiiganaga way haddii aan doorano ugaaski garaha dhihina ugaaski Soomaaliyiintii way ugaaska Soomaaliyiintan dooran anaga saas wey ma qabno in qabiil aan kala jirno degmid fulaan maaha anaga garaadanahay runtii Soomaaliya adkan idaacadan ka fiirsanaya ila Muqdisho waa soo maray meel kasta waa soo maray Soomaali ayagoo wada dhasheen iska aabbo iska hooyo sodaha abte eedo akaku yihiin anaga askale meesha soo istaagin baa leeyahay anaga askale kii anaga askale aabe way ugu marka ama wowgeegi way ama btigeegi way waya isiga ay dhalee anaga askale intii imaanaysa marka waara la yaabay way ugaasow arrintaas niga ilaali
dhulkii soomaaliya iskale adigu ugaaska soomaaliya tahay soomaaliya iska xir hebelaa iskale dhihin maya injir ma jirta arrintaas runtii haddaan sheegno annaga qoomiyad ilaahay siiye oo badi sidii haddaabay tili sheegay jaad madaxweyne Hussein Abre waa garaway jaad madaxweyne wareesta taariikh raac Hussein Abre waa garri waa tuuf quraanyo waa kiliyawe Hussein Abre baqasheen taariikh saas u socda halkaas waa degannahay Kenya waa degannahay dhankanaga anaga afka afreer libina ku leeyahay daf Soomaali baa martimoogi afkayga odiga hadda ku leeyahay reer libin baa la yiraa reer libin ayaa la yiraa reer libin waa gari Itoobiya degaway reer bay wuxuu degay gari dhowdhow waa la yiraa koonfurtu degantay waa garanaysiin in afdiin Kenya degantay waa garanaysiin alxamdulillah intaasan degannahay dadki muslimiintana dhax degay marxaati kolley dadkina dhax jir laga ma waynaye amaana buuxda la helay dukaan ba furanayaan bacshara furanayaan geel ba daajinayaan eri ba daajinayaan gibdha ba naga guursanay adi Soomaali ma islaam ma taa ma weydinaa ma ogi adi isaaq miya ma jirtay miya fulaan miya ma dhahayn ilaahay no ma keeno ugaasow niga ilaali jidka aabbaha naga walaalaha naga soo maray niga ilaa taasaan marno ilaahay saasuu jecelahay dad muslim baan nahay hadda mooyaane dad tagto doola dad tagto inta soo mar ugaasa dhan doola waa garaway waa garanaysiin hadda doola marto ilaa fiilto aad marto mooyaale ilaa ma hoos malka mari meel xuduudka Kenya ilaa Soomaali hor doolo ligaaray xuduudki waxaan u maleynaa 1900 kilomitir garaba degan inkastoo Soomaaliya wada degan ku jirto intaas macallinka dugsi fadhiyo waa Soomaali weyntii way kii gabar guursana waa Soomaali weyntii way kii warta qodana waa Soomaali weyntii kii barakadis sidii rabbi ogi adiga inta iska maad ma dhahayn laga ma arkay islaam ma tahay haawi alxamdulillah rabbil alamin saasan jecelahay saasan rabnaa inaan dhahno gaaraha waxa u daardaramaya dadka walaalaha naga digili mirif xaqi joogo amalki Soomaali ha qaadanina amalki Soomaali ha qaadanina dad islaam baana ummadna Muhammad baana ina qabiil ilaahay ma sheegin rasuulka ilaahay ma sheegin rabbi ilaahay ma sheegin wax ura qabiil baali ka carara waxa soo ura waa qabiil ka carara liye anaga dawlimi ma rabna ummad jeclaanaysa ma rabna abtiyaalka naga soo raasano oo ganaga soo raasano gabar ninka ka guursan aan xishmayno waalidka hor aan xishmayno qalab idinka xagga degan amalka Soomaali isku ilaaliya oo idinka xagga niga aniga waa tagay shak meel ka soo qodbayni runta daan sheego imaam male dadki dad walaalaha dhashay abtiyow kaad raallahu bari aan darab dad imaan la dad aragto waa dad isku soo qabana dad islaam soo gaamina koob shaasina sheeko wanaagsan siina way salaam alaykum wa alaykum salaam meesh udur ba ku jira salaam alaykum wa alaykum salaam baawe maaha xaq maaha waxaas ilaahay ma jecel marka ani waxa soo koobaya ugaasow waxa la yiri ugaasow kir ugaasow mood sababti wax sabri way macna ugaasow kir ugaasow mood ma Soomaali Sooma sama jirta macna kir adaa lagu yirana iska sabar mood dhageysan iska baxway macna ani waxa idin sheegaya dagili mirif odayaashii tihiin odayaal Soomaaliyaad tihiin odayaal muslimiinaad tihiin odayaal intaasoo diinta laga soo gaaraad tihiin waxa idin ka codsanaya waa inaan ummad iska xirno oo ballan kala qaadano qabiil fulaan la dhahaynin aan la xishmayno alankanaga shanta Soomaali waa raasanayna ka maareeyo ilma dambe iskuul u barana waa gelinayna dana maxaa sababa waa waalidkanaga oo in Abdullah Xasan ba kamida noo calaameeyay calaamada waalidkanaga noo suray ina raasan waajib weey ma baamiya wasaas weey marka waxaan ka soo koobaya aniga garaadanahay waa military Soomaali baan nahay dal furaay weeye dalan furayna idinka soo soco waysay magaca anaga horta garaad dal furaay noo bixiya dal furaay noo bixiya beena daasheego buugi qalanka qaata oo ilaa luuq garbaare ka soo mariya oo inta baar dheer soo mariya oo faafadhun soo mariya oo aniga dad ka soo ranay 700 sano oo maalin bahal gobol al degma soo goynayna hadii tii u dambeys daraadan joogna hadii dantii ugaaskii yaan saaranayna waxba kama qabno
ugaasow yurub oo dhan ugaas ka tahay soomaali inta shanta soomaaliyeed ugaas ka tahay ha qabiil ha sheegin meel dhibaato ku aragto ku tag nusoo wac garabtaad midigaan joogna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugaaskii imaamidaan saaraynaa ninkii sheeki kasta gadaal u maraya aniga magacayga yuusuf isaaq cabdi aa la yidhaa waxaa ku dhashay aniga waxaan ku dhashay liiban gari libinaan ku dhashay gari libin ee gartiisa balele maxaa loo tari gabdhaha heeska ku qaadaya ugaaskii calankaan saaray imaamida ugaasow soo dhawow ugaaskii garaata ugaas soomaali baa tahay ugaas shanta soomaaliyaad tahay soo dhawow ليش كل عبد بس أنا كل واحد بسمع أنا الوضع بلعب كل بعض والله ساك تركايدي هذيك سار أنا أيوة بسم الله الرحمن الرحيم وقاس غير قبول ليبان بركة أو سومالي سكين الله كاذب لا فرنسي أنا جالس كعب aan fariisanno marka aan fariisanno أنا صورة كقاعدة أنت تبينه okay okay ليش يدبر bal xogaa yar aan dulqaadanno aan yara fariisanno idinkoo raalli ah aan fariisanno xogaa waqtiga runtii ballantu waxay ahayd inaan halkaan shirka oo si toos ah inoogu furmo 3 o'clock dabcan meelo kale unbaa waxyaabo kale ka jiray marka adigu intaan sugayn waxay gaartay ilaa iyo 6 un bayna la gaartay haddii 3 o'clock aan furo lahayn mar hore arrimeen waxay ahaan lahayn arrimo iska gabagaba ah marka waxaan jeclaan lahaynay bal in aan maadaama dad badan ay noo dhiman yihiin suldaankiina hadda halka aan ku caleem saarnay suldaan cali xasan cismaan maxamed oo noo dhiman yahay in waqtigii yar aan haysano aan ka faa'iideysano si aan u soo koobno waxaan ku soo dhaweynayaa yuusuf isaaq cabdi okay waa maasantahay okay hilmaan hadal kuma jiro يوسف ما سنت هذه الما هذا الكمجرو حسن علي إساق حسن علي إساق حسن هاي السلام عليكم ماشي waxaan isku imaanay Alensar oo Ali Xasan aad baan isnaqaan horta 25 ilaa 27 sano waan isnaqaanaa Ali Xasan marka si hata Ali Xasan oo dardaaramkayga wuxuu ahaa waan kula dardaarmayaa dadka maanta ku Alensarta waxa waaye niman garaa oo maaragtay 4 meel oo kala degan oo sidii markii horeba la sheegay Ali Xasan howl weyn baad qaaday oo ballan baad gashay howsha maanta aad dhex gashay waa howl yar maaha howl fudud maaha ballankan aad maanta qaaday ilaahay kugu garab galo garaha Yurub iyo Asia iyo Arab iyo America kulli horta way ku soo doorteen sidii aan ka warqabo ballankan nimankaas aad u gashay ilaahay garabkaaga ha galo ilaahay kuu fududeeyo si maaragtay daacadda uga soo bax marka insha Allah intaas baan uga baxaya jazakallahu khairan wa assalaamu alaykum حسن علي إساق aad u mahadsan Sheekh Xasan sida wanaagsan oo aad noogu soo koobtay waqtiga ugu yar daraadeed runtii waxaan filayaa su'aalo badan